kulan ay maanta isugu yimaadeen Koongareeska dalka Mareykanka ayaa waxa ay markale soo jeediyeen in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump. kulankani oo si weyn loo sugayay isla markaana warbaahinta caalamka ay si weyn u hadal haysay ayaa waxa uu ka dhacay aqalka Koongareeska ee Mareykanka. xildhibaano gaaraya 232 oo ka tirsan Koongareeska ayaa u codeeyay xilka qaadista Trump kadib markii lagu eedeeyay kicin dadweyne iyo xilgudasho la'aan. afhayeenka Koongareeska Nancy Pelosi ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in mar kale aqalka ay hogaamiso uu soo jeediyay in xilka laga qaado madaxweyne Donald Trump. Cabdirasaaq Cali Boos oo ka mid ah Soomaalida Mareykanka si weyn ula socda arrimahaasi ayaa waxa la hadlay Nabad TV waxaana weydiiyay wixii maanta ka dhacay Koongareeska. aqalka dalka Mareykanka ayaa maanta dood ay yeesheen waxay ku eedeeyeen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inuu ka dambeeyay si toos ah kacdoonkii lagu weeraray capitalka ama meesha ay labada aqal sanadkii Koongareeska fariistaan bishan 6deedii oo halkaas dhibaatooyin dad badan ku dhinteen dhaawacyo badan loo geystay maxaan ku dhismaha iyo askartii meesha ilaalinaysay. aqalka ayaa dood dheer kadib waxay go'aan ku gaareen in xilka laga qaado Donald Trump oo mar horena impeach gareeyay ama xilka laga qaaday laakiin sanadku badbaadiyay hadeerna mar labaad ayay waxay yiraahdeen waa in xilkii laga qaadaa sababtoo ah dhibaatooyinkaas ayuu ka dambeeyay waxaana ka codeeyay xitaa 10 qof oo kamid ah xisbiga Republicanka ee soo ka tirsan yahay oo u codeeyay in laga qaado xilka. waxaana xilka qaadistiisa loo gudbinayaa aqalka sare ee Mareykanka waxaana xusid mudan in aqalka sare ay u badan yihiin xildhibaano ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ee madaxweyne Donald Trump uu ka tirsan yahay. waa kan mar kale Cabdirasaaq Cali Boos oo ka warama suurtagalnimada in aqalka sare ay mooshinkani meel mariyaan. inkastoo dad fara badani ay aad uga xun yihiin labada xisbiba ama dimuqraadiga iyo Republicanka dhacdadii xumeyd oo ka dhacday haddana madaxweynaha Donald Trump ayaa xisbiga Republicanka taageerayaashiisu aad u jecel yihiin oo maalintii dhaweydna doorashadana 70 milyan dad ku dhow ay u codeeyeen. marka siyaasiyiin fara badan oo sanadka kamid ah ayaa waxay ka baqayaan haddii ay u codeeyaan ay yiraahdaan ha laga qaado xilka in hadhowdii ay dhibaato siyaasadooda ay u geysato. marka sanadka oo 100 qof ka kooban oo haddana tirada sanadkana ay xisbiga Republican gacanta ku hayaan ayaan la rajaynayn in ay suuro gasho in xilka laga qaado balse haddayba dhacdaba in laga qaado ayba isku raacaan sanadkii aqalku in xilka laga qaado ilaa bisha 20keeda ayuu meesha joogi doonaa balse taas macnaheedu waxa xilka qaadida isagoo muddadiisu dhamaatay looga qaadayo waxa weeye haddii ay ku dhacdo xilka qaadidaasi Donald Trump mar dambe uma tartami doono ama ma u qaban doono xil maadaama ay ku dhacday xilka qaadidaas. codeynta maanta waxay ka dhigan tahay in Donald Trump uu noqon doono madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka oo abad xilka qaadis lagu sameeyo 2 jeer. bishii December ee sanadkii 2019 ayuu noqday madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka oo lagu fuliyay mooshin xilka qaadis ah. laakiin sanadka ayaa markaas ka bariyeelay eedeymaha ay dacwadda lagu soo oogayba. laakiin haatan sanadka mar kale ma badbaadin doona madaxweynaha cabaareysan ee Donald Trump. Asmar Cabdinuur, Nabad TV, Minnesota.